بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن السلام الرحيم عليكم ورحمة السلام الله عليكم ورحمة تعالى الله وبركاته. تعالى وبركاته. halkani waxaan idinku soo bandhigi doonaa barnaamij aan kaga hadalno waxyaabo dunida aad la yaab ugu dhaliyay taasoo ah wax dabiici ah. Haddaba sida ay caadadu tahay amase aynu ku aragno koonkan dushiisa waxaa jira waxyaabo Allah subxaanahu wa tacaala qadartiisa iyo sida uu u abuuray ay la yaab fara badan ay geliso bini'aadanka iyo basharka ku nool koonkan dushiisa. Haddaba khubarada caalamku waxa ay aad iyo aad u falanqeeyaan dabeecadaha dhulkan aynu ku noolnahay. Tan iyo muuqaalkani waa biyo u kacaya xagga sare taasoo ay ku macneeyeen inuusan halkan ka jirin wax ofisjiidad ah kaasoo sababaya biyaha baddu inay kor u kacaan, taasoo ah wax qariib ah oo aan caado u ahayn dabeecadda dhulka iyo aragtida aynu ka aaminsannahayba. Kani waa mid ka mid ah mucjisooyinka Allah subxaanahu wa tacaala uu koonkiisan dhigay, kuwaasoo ah qaar mudan in lagu cibro qaato lana ogaado in Allah subxaanahu wa tacaala uu qadaro wax walba isagoo u adeegsanaya awoodiisa ah kun fayakun oo uu ku ahaanayo shay walba halkiisa. Muuqaalkan waxaad ku aragtaan dhagax taagan hawada dhexdiisa, taas oo ay lagu macneeyay khubaradu ay yidhaahdeen waxaan halkan ka jirin ofisjiidad amase gravity kaasoo walaxdan ku qasbay inay taagnaato meel dhexaad. Halkani waa goob dalxiis oo ku taala dalka Mareykanka, gaar ahaan buur ku taala meelo ay dadku dalxiis ahaan ay u tagaan. Haddaba goobtan ayaa waxa ay dalxiisayaashu ay aad ugu xiiseeyaan inay la kulmaan ama ay arkaan xaqiiqada ka jirta. Tan oo la furay 1940kii loona oggolaaday inay booqdaan dadku waxay ku taalaa kaymaha waaweyn ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Sida muuqaalka idinka muuqata ma jirto wax ofisjiidad ah amase gravity ah, qofkuna waxa uu u soconayaa sidii walax oo kale. Tusaale ahaan hadda waxaa inoo muuqda kubbad la duldhigay loox, taas oo looxu uu u fooraro xagga dhulka balse kubbaddu ay u soconayso xagga sare, taasoo ah wax qariib ku ah dhulkan aynu ku noolnahay iyo aragtideennaba. Halkani waa buur ku taala dalka Canada, waxaana lagu magacaabaa buurtan buurtii magnetka. buurtani waxa ay leedahay waxyaabo cajiib ah oo Allah subxaanahu wa tacaala ku manaystay oo ay kaga duwan tahay dhammaan buuraha kale ee ku yaalla adduunkan dushiisa. Tusaale ahaan hadda waxaa inoo muuqda darawalkan gaadhigu isaga oo bariiga haya ayaa waxa uu ku hagaajinaya waddada gaadhiga, balse waxaa dhacaysa sida muuqaalka inoo muuqata inuu gaadhigii dib u soconayo. Tan ayaa khubaradu waxay ku macneeyeen inay tahay buurtani mid mucjiso ah, taas oo leh magnet aad u fara badan oo awood leh kaasoo ka hor imanaya cadaadis kasta. Tusaale ahaan haddii laba shay oo labaduba ay birlab yihiin la iska hor keeno, waxaa dhacaysa in labadaasi markay dhinacyadooda la isku beego labada dhinac oo ah qaar isku mid ah ayaa waxay sameeyeen inay kala yaacaan. Haddaba muuqaalka xiga waxaynu ku soo qaadanaynaa biyo xidheen ku yaalla dalka Mareykanka. Haddaba biyo xidheenkani ayaa waxa uu ku yaallaa goob aad u sarreysa, taas
oo ah meel ay aad ugu yar tahay cufisjiidadku. Saynis yahanadu waxay sheegeen halkan inay aad ugu yar tahay cufisjiidadka. Cufisjiidadkuna haddii aanu sharaxno waa shayga ku soo jiida dhulka walax kasta inay hoos ugu soo noqoto dhulka dushiisa, balse marba marka ka dambeysa ee aad ka fogaato dhulka ayaa waxa dhalanaya cufisjiidadka dhulku inuu yaraado oo hoos u dhaco. Taas ayaana keenaysa marka la aado dayax-gacmeedka dushiisa inaysan jirin wax cadaadis ah oo ka hor imanaya qofkuna uu sidii baallayda oo kale ugu dulduulo dayax-gacmeedka gudihiisa. taas ayaa loo yaqaanaa cufisjiidad la'aan. haddaba daawadayaal, barnaamijkan intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.